waxaan ku weydiinayaa ninkaa maqaaxida fadhiistay ee aad markaad maqaaxidii soo gashay ee aad cuntadii dalbatay miiska aad wada fadhideen ee markaa cuntadii iyo la fadhiisigiisiiba xaaraan ay noqonayso ninkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahu noo fududay ninkaasi wuxuu cunayay hilibka doofaarka hilib doofaar buu cunayay waa rijinaabisna صح ما لكن wax kala sheegto khatar astaghfirullah alayhi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta meel kasta adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka baradintaada insha Allah dadweynaha ayaan su'aalo diiniye weydiinayna cidii ku guuleysata sidii caadiga ahayd waxay ku guuleysan doontaa ama ay heli doontaa jaaisooyin iyo abaalmarino intaanan markaa barnaamijka bilaabin waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo qofkii fudeydiyay barnaamijkan ilaahay khayr ha siiye waxa weeyaan caasha shirwac baa la dhahdaa marka maamada caasha shirwac ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u barakeeyo waxay la baxdayna miisaanka xasanaadka Allah ugu daro waxaan ka sii horeysanayaa sidoo kale iclaan ama ogeysiis yar oo aan rabo inaan dadka ogeysiiyo barnaamijka baradintaada waxaan ka qornay kitaab la yiraahdo baradintaada marka qofkii u baahan insha Allah kitaabkaas uu nala soo xiriiri karaa biidnillah waxaan ku bilaabayaa walaalkaygan garabkayga taagan ayaan su'aasha ugu horeysay weydiinayaa insha Allah assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magaca walaalo أنا يوسف عبد الله. يوسف عبدي oo ku soo dhawo barnaamijka baradintaada insha Allah su'aal diiniya ku weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxa weeye ummadda nabi maxamed waa ummadda ugu khayrka badan leh ummadaha dhammaan soo maray oo dhan marka waxaan ku weydiinayaa sababta ay ummadda nabi maxamed kaleey salaatu salaam ay khayriyada ku heshay maxaa keenay inay noqoto ummadda ugu khayr badan ummadaha بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نسكت سؤال جوابتها سؤال جوابتها صح هذا قرت هذا قروان وكيف يسندون إن شاء الله marka hadii aan isku dayo waxaan u maleynayaa maadaama nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu yiri badiya guurka si aan ugu faano iyo maanta yawm qiyaamo badnaanta ummadayda inay ka qayb ka tahan filaya ما وصحسنت جزاك الله خير انت حديث كاس صحيح النبي قال هي مارتي تزوج الودود الولود هل غورسده gabadha dhalmada badan ee ninkana jecel taas waa sax laakiin ummadda nabi maxamed waxa jirta moogta waxay kaga duwan tahay ummadaha kale oo ay ku heshay khayriyada quraanka ilaahay ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas waxa tiidin ummadda u khayr badan ee ilaahay soo bixiyay maxaan ku helnay ilaahay baa sifeeyay wuxuu 2 3 arrimood isku day marka 3 arrimood bi ilaahay sheegay waxaynu ku helay maadaama aad aayada bilowgeedii sheegtay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar inaynu wanaagana isfaro xumaantana iska reebno waa sax weey laba shardi waad sheegtay oo wanaagana in la isfaro xumaantana la iska reebo si wanaagsan aayadiiba wad xasuusatay ma sha Allah aayada ku sii darsabo shardiga saddexaadna uu ku sii jira wanaagana in la isfaro xumaanta la iska reebo laba shardi ayaad sheegtay كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والرسول إن شاء الله وتؤمنون بالله ما معناه يا إله الرئيسان يا إله الرئيسان الله أكبر ده الله أكبر ما شاء الله ninkan waa xaafid quraan moogtaa hadad quraanka xifdisantahay wax badan baa ku fududaanaya ma sha Allah soo si hadiyadiisi jazakallahu khayran aad ma santa Yusuf barakallahu fiik walaal ma sha Allah barakallahu fiik waa sida weeyaan ummadda nabi maxamed waxay khayrka ku heshay waa saddexda arrimood ilaahay uu sheegay inay wanaagga isfarto xumaantana iska reebto ilaahayna ay rumaysan yihiin marka qofka ku xiga ayaan u gudbi doonaa ma ka qayb galaysaa adeer soo dhawow waa ku weydiinayaa su'aalihii odayaasha su'aashii odayaashan ku weydiinaya Allah ku fududeey اللهم صل على رسول الله السلام عليكم أدر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاق أدر إبراهيم حاج نور بالله إبراهيم حاج نور وكسره برنامج كبردين هذا وحن كويدين يا سؤال شاس واحد النبي يقول حنوش عليه الصلاة والسلام نين با سفر بو قلي سفر دير بو قلي
isagoo safarka ku jiro gacmaha ayuu sare u qaaday ilaahay buu baryey yaa rabbi buu yidhi ducadii buu markaa waxa weeyaan ilaahay buu baryey haddana ducadii lagama aqbalin maxay ku dhacday muxuu nebigu yidhi maxaa uu sameeyey ninkaas ee ducada looga aqbali waayey ninka ducada looga aqbali waayey waxa weeye wax xalaala baanu cunin wax xalaala baanu cunin allahu akbar allahu akbar warintiisii wax xalaala ayaanu cunin marka xaaraanyahan buu astaghfirullah alcaliy soo si hadiyadiisa waruntiisa weeyaan qofku haddaanu xalaal cunin waxa weeye ducadiisa waa lama aqbalayo marka xadiiska nebigu wuxuu ahaa qofkiyaasi wuxuu cunay xaaraan buu cunay dhar xaaraana wuu gashtay wax xaaraanana wuu isku quudiyey aad baad mahadsantahay jasaakallah khayran waad garatay su-aasha soo dhowow maasha allah asalaamu calaykum adeer وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga عبد يوسف cabdi yuusuf oo ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada waxaan ku weydiinayaa su-aasha ku weydiinaya waxa weeyaan meel hudheela baad gashay ama maqaaxi cuntaad maaragtay dalbatay miiskii cuntada qof baa fadhiya markaad qofkaa aragtay ayaa cuntadiiba xaaraan kaa noqotay siday ku dhacday markaan qofka arkay haa qofkaa markaad aragtay isaguna miiska wax ku cunaya ayay cuntadii xaaraan noqotay ayaa in lala fadhiista iyo meeshaasba aaggaasba xaaraan bay noqotay qofkaasi waxa weeye dee waa qof weeye gaala ukaadi gaal maaha mar haddaad gaal nebigu gaaladaas lama fadhiisan jiro diinta waa kii u sheegi jiray marka wax dhibo male gaalka waa lala fadhiisan karaa laakiin ninkani xilligaa waa nin hadduu doono muslima laakiin xilligaa faldembiyeed buu ku jiraa waxbuu wadaa marka miiskana wuu kula fadhiyaa ninkaasi miiskii cuntaduu fadhiyaa hawlna wuu wadaa deetana markaad aragtay cuntadii inaad la fadhiisato miiskaa la fadhiisato xaaraan buu noqday ninkaasi waxbuu xamanayay soo sii hadiyaddaa wuu isku dayay allaha barakeey waa nin wax xamanaya dhe maasha allah ninkaasi waxbuu xamanaya waa hilibkii walaalkii buu cunayey may soo sii hadiyaddiisa kale insha allah wuu isku dayay aad baad isugu dayday waa nin waad isku dayday aad allah ku barakeeyo waad isku dayday waa su-aashii haddaad iminka garan lahayd intaa ka badan baad heli lahayd soo dhawow yaa ku weydiinaya adeer halkaa taagno in yar asalaamu calaykum magacaa walaal idriisow ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada su-aal diiniyaa lagu weydiinayaa allaha kuu fudaydiyo nebigu wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam likulli melikin xima boqor kastaaba wuxuu leeyahay meel seera ah oo aan loo soo dhowaanin haddaba waxaan rabaa ilaahay seerihiisa ama xuduuddiisa waa maxay diinta maynaan gelaynin waa loo eeg waxaa la rabaa meel aan loo soo dhowaanin xuduuddaa ilaahay uu dhigay waxbaa jira eeg boqor walba xuduud buu leeyahay soomad arkin dal markuu de waddan ama waddan xuduud bay waddanba uu leeyahay markaa waxaa la rabaa xuduudda haddaba ilaahay uu dhigay ee la yidhi lama dhaafi karo oo macnaha isaga xayndaabkii weeye tilka xuduudullaahi falaa tactaduuha waa xuduudda ilaahay ha dhaafina diinta lagu gafo si kale u dhiga diinta marka lagu gafo dhinac bay ka noqonaysaa laakiin xadiiska nebiga xadiiska haddaad xasuusta 40 ku yaala 40 kood dhigatay soo ma ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله داش 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 بقر كستابه وحليه هاي محي ميل سيرة ميل حنداب بولي دم ملا وسكوت دي صوصي هدية دي ساكلة إن شاء الله فائدة نقولنسا نكمل بقى عن تتاجي يوم على كذا قاضية إن شاء الله هم بليو جزاك الله خيرا وكوي من يادر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مقعادر سعيد نور فارح سعيد نور فارح وكسر دو برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال بالويدينية الله كوف ضيديم الله أكبر لا إله إلا الله هدي ما رأيتي من كنين يهودية وكسلامه نين يهودية أياكو سلامي ما حد يقول جوابي سيدي بقى لوجو عليني حلو أقول عليا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم بدل وعليكم وعليكم صوصي هدي وقرته صوص حنبليو جزاك الله خير هلا وقول يستي ما شاء الله لما أضي وكوي من يسايو اللهم صل على رسوله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد حسن محمود ورسمة حسن محمود ورسمة كسر له برنامجك إن شاء الله سؤال بالويدينية
waxa ku weydiinaya bisha ramadaan nebigu wuxuu dhahay shayaadiinta waa la xidhxidhaa haddana waxaan aragnay iyadoo shayaadiintii la xidhxidhay in dadka qaar dembiye galaan soomaa qaar baan soomin badda xaaraanta cuna siday ku dhacday shaydaankiina waa la xidhay haddana dadkii dembiye gelayaan waa runtaa waxa weeye shaydaankii yaryaraa ayaa furan allahu akbar dhaha allahu akbar rintiisa eeg maradata shayaadiin baa la xidhxidhay madaxdii shayaadiinta xadiiskaasaa tilmaamaya marka yaryarkii baa jooga ninka yaryarku ka adkaadaan maxaad kula talinaysaa waxaanu kula talinaynaa acuudu billaahi samiici alcadiimi min ashaytaan rajiim shaydaanka iska naar ma ninkii yaraa halka taagnaa aha adigu ah allahuma salli calaa rasuulillah asalaamu calaykum calaykum salaam magacaada cabdixaafid bile cabdixaafidoo ku soo dhowow barnaamijka baradiintaada insha allah su-aal baa lagu weydiinayaa allaha kuu fudaydiyo waxay weeyaan waa dembi khatara ilaahay wuxuu yidhi qofka faldembiyeedkaa ku kaca waxaan ka waraabinayaa min diinati alkhabaal waxa weeyaan dheecaanka iyo dhididka ahlu naarka walciyaadu billaah xaaraanta weeyaan waa xaaraanta waa qof walciyaadu billaah waxa la cabsiinayaa wuxuu cabbayaa dheecaanka ama dhididka ahlu naarka u cabbayaa dembi weyn buu galay waxa weeye qofka xaaraanta cuna ama dadka xaaraantooda cuna weeyaan xoolaha agoonta iyo waxa xoolaha agoonta waxa weeyaan aklu maal yatiim weeyaan maasha allah isku dayday laakiin aklu maal yatiim ma waa wax kale waa dembi kale weyn soo siyaadiyadiisa kale uu isku dayay inankaasi maasha allah jazakallahu khairan waadii manaya oo kaadi waxa waa iska arsaaqad ilaahay qoray weeyaan hambalyo jazakallahu khair way ninkan weydiinaya oo kaadi الله يدين بركة ولا له الله يدين بركة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا له مقعد إبراهيم عبد حسن إبراهيم عبد حسن وكسر له برنامج كبردين هذا سؤال شان كوديني وحويان واحد شيء تحلي أما وقتي نك الرجع أنا وبناني إنه جورسدو وكحران ما بجورسن كرو عندنا وما جورين كرو يعني إحنا ما جورسن كرو إسقنا عندي ما جورين كرو نكاس محروس همينة يعني نكاس وحلم حلقة ويان وكشرو حجك الله أكبر ده الله أكبر إلي إشارة الله إلهك هاي لالي إيش إشارة ده أمين وكسر قاده وحج كمر كشوق قفكي ومحرم كي هاي ما جورسن كرو ما شاء الله جزاك الله خيرا أمبليو الله أكبر كي واي سودو هذا مين هذا روكوي من يكاد نكنا عبارة تاجنا ويديني يس السلام عليكم وعليكم السلام مقعاولا عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمود وكسر له برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال شو ويديني وحي تهين اللهم صل على محمد واحد شيء يسا أفر عمل أما أفر يعني ده وحيالات أما شقاء وقبل المسلمين ده هدي لا تمادو سديد الباب الجنة الله فريه يسوي كذا عدي عضو إني سويت كذا عدي عضو وايه ومد كم إذا أفرتي فرش كذا أنا فرش كذا أنا إلى حين كذا أنا إلى شتى والله بقى ودور سناته ها أنت أصلا لك حس واحد شرته وحلا واجبات والرجل يدمر بواجب وقصبة إلى السنة دي صلاة دي أنا إلى شتى صونك هي صلاة دينا إلى شتى سكدر صونك كو صلاة ده هي دور سنان تيدا يسوي كذا يا دعوة ما شاء الله مقعد يقول عبد الرحمن وقرتي صوصي هديدي ما شاء الله جزاك الله خيرا همبليو ويا هيا الله يدين بركة سودو إيه ما أنت وضياشن حوق ساريا يا تضباط كيو هراء قال يرضي عيال كي هاد سودو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاولا إسماعيل باليها إسماعيل وكسودو برنامج كبردين هذا الله كبركة إن شاء الله وحنكو الدين أيام اللهم صل على محمد أفرك المدود وقفكم مركب وأوركم هو يدي كتشرو لا قرأ وإحنا اللي قبل دليل كريم بسم الله الرحمن الرحيم الأول وحوية وحلا قراء رزقيسا أرساقديسا وكو شقيبيا سعيد كون نقون دونو واي وخاتمديسا مركا إنو وناكسنان دونا محمان دونو واي والله با حلقة عمرقيسو قاري دونو أتشيسي حلقة عمرقيسو قاري دونو واي الله مستعان الله المستعان ما شاء الله صدح ما شاء سماها صدح ما شاء حويا رزقيسا شقيبيا سعيد كون نقون دونو
halka uu cimrigiisu gaari doono allahu mustacaan kelmadda afraad ma waad saxsanta uu sidii hadiidaadii kelmadda afraad kelmadda afraad waad sheegtay waa wixii uu qabanayay camalku qabanayay waa camalkii uu qabanayay ma sha Allah wadiga kaga soo qaaday soo si hadiidiisa jazakallahu khayran afartaas loo qoraa waxa weeyaan arsaaqadiisa ajashiisa iyo camalkiisa iyo khaatumadiisa waxa uu ku khatimi doono الله يديم بركة جزاكم الله خيرا اللهم صل على رسول الله نين أضيع ما نوبه هنا ما تضيع شربا ما تضيع شحوق ساري ويجي هورا ها صدق أضيع شوا أوريد أورقله ويجي هورا عيال كيا اللي يرد حوق ساري موت السلام عليكم السلام ما قاعد ولا شيخ عبد الرحمن محمود ها شافع عبد الرحمن وكسر ولا البرنامج كان إن شاء الله سؤال ديني الودينية الله يكون ضيّم waxaan ku weydiinayaa maqaaxibad soo gashay meel maqaaxiya ama hotel cuntaad ka dalbat marka miiskii cuntada nin baa fadhiya ninkaasi markaad aragtay cuntada aad cunaysa miina iyo inaad ag fadhiisato xaraan bay ka noqotay ha dhacay ninkaasi wuxuu sameeyay هذا سكوت جالس وصومنا may soomba maaha ninkii cuntadii waxbuu cunaya isaga laftigiisu miiskii baa cuntadii ladin soo wada dhigay deetana markaad aragtay wixii uu cunayay dabcan weeye ayaa inaad la fadhiisatay iyo inaad wax ku ag cuntaaba xaaraan bay noqdeen aan ku celiyo hada su'aasha jawaabta waqofkan tuway salaada waqofkaas taariikh salaad ha saasay may taariikh salaadka ba may waa qof wax kala sameeyay waxbuu cunayay khatara saasi waa miisku waxbuu ku sameeyay miiska سوسي هديتي ساقرة وسكدي أتبر هذا تري تارك صلاتك ودوده ما شاء الله ويدي قف قدو تارك صلات يا لومر دوان كرموت وكقاتسنا يا ها دعاني النبض وحنا هو ولا كلا قادة سما هاي جزاك الله خير أمبلي ده خير ويا خير ويا ويا لما قف كلام كل حكينا إن شاء الله ويا بلنك هي ربنا ما كبلا بلسودو هذا السلام عليكم عليكم السلام ما قاعد سدام waxaan ku weydiinayaa su'aashaas Allah ku fududeeyo aamiin waxa sheegaysaa nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam boqor kastaaba wuxuu leeyahay xuduud wuxuu leeyahay meel xayndaaba waxa sheegaysaa hadaba xim Allah xuduudda ilaahay uu leeyahay maxay lotku xadiiska ma barato 40 may kitaabka ma gaarin dhib mala سوسي هدي دي ساكلة وتبرنيس إن شاء الله هيدا إن شاء الله برو عادر حاجة نيك أنا كود يا شيخ حاجة يقصد همبليا كلا هذا الشيخ حسنا وبنا الشيخ أنا مكفي إن شاء الله أضياش ما تحب ساري السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد عبد الله شامع عبد الله شامع وكسر هو برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال شان كوديني يا وحي تهاي اللهم صل على رسول الله waxa ku weydiinaya ninka maqaaxida fadhiistay ee aad markaad maqaaxidii soo gashay ee aad cuntadii dalbatay miiska aad wada fadhideen ee markaa cuntadii iyo la fadhiisigiisiiba xaaraan ay noqonayso ninkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahu na fududay ninkaasi wuxuu cunayay hilibka doofaarka hilib doofaar buu cunayay waa rijnaabisna صح ما لكن واحد قال شيء تو خطر استغفر الله العلي العظيم وياه الله اكبر والله سؤال شو دم بيسون مالنا يا بن فريا